bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkaan nagala socotaan waa Samadoor oo aad had iyo jeer uga barateen barnaamijyo xiiso badan. maanta waxaa si kooban uga hadlaynaa waa kuwee 10 dal ee ugu yar qaaradweynta Afrika. sidaas darteed daawasho habboon. kaalinta tobnaad waxaa ku jira dalka Burundi wuxuu dhacaa bartamaha bariga Afrika. badka uu ku fadhiyo wuxuu dhan yahay 27830 kiiloomitir laba jibaaran. tirada dadka waxaa lagu qiyaasaa xilligan la taagan yahay 11,847,727 ruux. Burundi wuxuu xornimada qaatay 1 Julaay 1962 wuxuuna ka qaatay dalka Belgiumka. kaalinta sagaalaad dalka Rwanda waa dalka sagaalaad ee ugu dhulka yar qaaradda Afrika. Rwanda waa mid ka mid ah dalalka dhaca bariga Afrika. dhul ahaan wuxuu ku fadhiyaa 26,798 kiiloomitir laba jibaaran. dadkiisu waxay dhan yihiin in ka badan 12,909,395 ruux. xornimada waxay qaadatay Rwanda 1 Julaay 1962 waxaana gumeystay dalka Belgiumka. kaalinta sideedaad waxaa ku jira dalka Djibouti waa dalka sideedaad ee ugu dhulka yar Afrika. Djibouti wuxuu dhacaa geeska Afrika. dhulkiisu wuxuu dhan yahay 23,200 kiiloomitir laba jibaaran. dadkiisu waxay tir ahaan gaarayaan in ka badan 986,166 ruux. wuxuu xornimada qaatay 27 Juun 1977 wuxuuna ka qaatay dalka Faransiiska. dalka toddobaad ee ugu dhulka yar qaaradweynta Afrika waa dalka Eswatini ee loo aqoon jiray Swaziland. waa dalka toddobaad ee ugu badka yar qaaradda Afrika. wuxuu dhacaa koonfurta Afrika. dhul ahaan wuxuu ku fadhiyaa 17,364 kiiloomitir laba jibaaran. dadkiisu waxay dhan yihiin 1,158,658 qofood. wuxuuna xornimada qaatay 6 Sebteembar 1968 wuxuuna ka qaatay Ingiriiska. kaalinta lixaad waxaa ku jira dalka Gambia wuxuu dhacaa oo ku yaala galbeedka Afrika. dhulkiisu wuxuu dhan yahay 10,380 kiiloomitir laba jibaaran. dadkiisa waxaa lagu sheegaa 2,407,670 ruux. wuxuu madax banaanida helay 18 February 1965 wuxuuna ka qaatay dalka Ingiriiska. kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka la yiraahdo Cape Verde ayaa ah dalka shanaad ee ugu dhulka yar qaaradweynta Afrika. Cape Verde waxay ka kooban tahay 10 jasiiradood. Cape Verde waxay dhacdaa badweynta Atlantic ee galbeedka Afrika. isku darka dhuleed ee uu ku fadhiyo dalka Cape Verde wuxuu dhan yahay 4,033 kiiloomitir laba jibaaran. tirada dadka waxaa lagu sheegaa 555,228 ruux. Cape Verde waxay xornimada heshay 5 Julaay 1975 waxayna ka qaadatay dalka Boortaqiiska. dalka Comoros waa dalka afraad ee ugu dhulka yar qaaradda Afrika. Comoros waa jasiirado isku tagay kuna yaal badweynta Hindiya ee bariga Afrika. dhulkeedu wuxuu dhan yahay 2,235 kiiloomitir laba jibaaran. tirada dadkeedu waxay dhan yihiin 867,268 ruux. Comoros waxay xornimada qaadatay 6 Julaay 1975 waxayna ka qaadatay dalka Faransiiska. kaalinta saddexaad waxaa ku jira dalka Mauritius. waa dalka saddexaad ee ugu yar qaaradda Afrika. jamhuuriyadda Mauritius waa jasiirad ku taal xeebta koonfur bari ee badweynta Hindiya. jamhuuriyadda Mauritius dhulkeedu wuxuu dhan yahay 2,040 kiiloomitir laba jibaaran.
dadkeedu waxay gaarayaan 1,271,519 ruux. waxay xornimada qaadatay 12 March 1968 waxayna ka qaadatay dalka Ingiriiska. kaalinta labaad waxaa ku jira dalka la yiraahdo Sao Tome and Principe. waa dalka labaad ee ugu baaxadda yar qaaradweynta Afrika. wuxuu ka kooban yahay 2 jasiiradood. bad ahaan wuxuu ku fadhiyaa 964 kiiloomitir laba jibaaran. dadkiisu waxay gaarayaan 288,619 ruux. wuxuuna xornimada helay 12 July 1975 wuxuuna ka qaatay dalka Boortaqiiska. dalka koobaad ee ugu dhulka yar qaaradweynta Afrika waa dalka la yiraahdo Seychelles. Seychelles waxay ka kooban tahay 115 jasiiradood. waxayna dhacdaa galbeedka badweynta Hindiya ee bariga Afrika. waxay bad ahaan ku fadhidaa dhul dhan 451 kiiloomitir laba jibaaran. tirada dadka waxaa lagu sheegaa 98,274 ruux. waxayna xornimada qaadatay 29 June 1976 waxayna ka qaadatay dalka Ingiriiska. halkaas waxaa noogu eeg mowduuceeni maanta ee ahaa 10 dal waa kuwe 10 dal ee ugu yar qaaradweynta Afrika. waxaan jeclahay inaad ka bogateen oo aad ka faa'iideen. waxaan idin leeyahay mar labaad Ramadaan wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad ha noogu dhameeyo inta yar ee hartay. وبشان سجينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان وبشان سجينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان